habeen wanaagsan dhamaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka daqiiqadaha wararka Afrikada bari saacadu waa 8 fiidnimo oo gowa qodobadan idin hayo maanta waxa kamid ah magaalada Kismaayo oo ciidanka rasaasta cirka u rida amar cusub laga soo saaray laamaha amniga waxaan rabaa inay ka shaqeeyaan xabadahan dhacaya ee guriyaha dadkooda ugu ridaya war cidii qori ridaysa lagu arko qorigan ha laga qaado cidii u shaqeynayeen hana la xidho gudoomiyihii gobolka Gado ee dhawaan Jubbaland u magacaawday oo safar dhulka ah ku tagay magaalada Garbaharey taa waxaan rabaa markii aan u sheego dadka propagandada sameeynayo oo raba inay magacyo u bixiyaan aniga imaashayga sida oo madaxda gobolka ay u imaan jirtay markay duruufo timaado sida oo baan u imid wax kale oo ka duwan meena jirin magaalada Qardho waxa qaati billahi laga taagan yahay dadka daroogada iyo maandooriyaha isticmaala khamradiiba hadda la inoo sakhirayo abtow leeyahay waxa la leeyahay waa iska maxay geedkiyo wad arkaysan ummad loogu talagalay in la baabi'iyo wasiirka gaashaandhigga oo militariga Soomaaliya kula ciiday deegaanka Jannaale ee gobolka Shabeellada Hoose xisbiga wadani oo iska fogeeyay dhibaatadii Soomaaliland ay ka geysatay Laascaanood gaashaanbuurta NATO oo sheegtay inay diyaar u tahay dib walba oo ka yimaada calooshood u shaqaystayaasha Ruushka ka dilaacay iyo qodobo kale aan ku bilaabay magaalada Kismaayo waxa la sheegaa dhowr jeer inay dhaceen rasaas ay ciidanka iska ridaan iyagoo shacabka ku dhex jira madaxweynaha dawlad goboleedka Jubbaland Axmed Sheekh Maxamed Islaam ayaa arrinkaasi amar adag ka soo saaray laamaha amniga waxaan rabaa inay ka shaqeeyaan xabadahan dhacaya ee guriyaha dadkooda ugu ridaya war cidii qori ridaysa lagu arko qorigan ha laga qaado cidii u shaqeynayeen hana la xidho fasaadka xabadaha ciidanka mas'uulka ama ku banaan ka yimaada ha noqdo ama ku gudaha jooga ha noqoto ilmaha yar ee xabada intii laga korrida naxaya waxa laga yaabaa ilmo qof xanuunsanayo markaa indhaha isku qabtay yaa baas laga korridaya qofkii maxaa ku dhacaya uu soo mardaba inuu ku noqonin baa caawo dhan waa habaartabaya adoo maxaad samaynaysaa marka ilaa dhibkii waad geysatay ma ogid guriganaad ka korridaysa waxa ku dhacaya intayna xabad meel qof ku dhicinba hawshaasi rasaasta ciidanka amnigu war akhlaaqiyaadkana ciidanka laga dhiso rasaasta la ridayana tallaabo cad laga qaado intaanan Jubbaland ka bixin gudoomiyaha gobolka Gado ee dhawaan Jubbaland ay u magacaawday gobolkaasi oo muddo laga hortaagnaa inuu magaalada Garbaharey ka dago ayaa hadda safar dhulka ah oo gobolka Gado uu ku dhaxmaray waxa uu ku gaaray magaalada Garbaharey markuu halkaasi tagay ayuu hadlay gudoomiyahan cusub waa Cabdullaahi Shimbire taa waxaan rabaa markii aan u sheego dadka propagandada sameeynayo oo raba inay magacyo u bixiyaan aniga imaashayga sida oo madaxda gobolka ay u imaan jirtay markay duruufo timaado sida oo baan u imid wax kale oo ka duwan meena jirin waxa kale oo rabaa inaan uga faa'iideysto munaasabada inaan dadka reer Gado gobolka jooga aan iraahdo waxaan diyaar u ahay inaan idin fidiyo gogol wada tashi ad ku tashataan wadanihiisna kaga hadashaan horeyna waan u sheegay oo waxay ku jirtay waraysigii hore cidii dib heshiisiin u baahan waxaan rabaa inaan taas ka wareysano markaas cidaan u dirsan lahayn iyo cidaan la xajoon lahayn markaas la xajoono wahagaag magaalada Qardho daroogada iyo isticmaalka maandooriyaha ayaa dhibaato weyn ku haya boqor Burhaan oo kamid ah odayaasha dhaqanka ee ugu miisaanka culus Puntland ayaa arrinkaasi maanta meel fagaara ah magaalada Qardho uga hadlay dhibaatada ay ku hayso shacabka iyo magaaladaba khamradiiba hadda la inoo sakhirayo abtow leeyahay waxa la leeyahay waa iska maxay geedkiyo wad arkaysan ummad loogu talagalay in la baabi'iyo tiradeenu tiro iska yar oo 12 milyan waxaana ku gadaamaan waa aragtaa 150 milyan oo Itoobiyaan iyo 100 milyan ku dhow Kenyaatiya oo intooda bal Kristaan iyo gaalo tahay haddaynu marka inteena yarta ah oo dhulkan barwaaqada dul fadhina oo bad iyo bariba buuxa oo khayrka iyo nimcada Ilaahay ku shubay haddaynu baabiino dadkeeni
oo khamri in jaad qaato in khamri ay maxaa ku baaba'aan hadda waxaynu ku talagalnay inaan dhulka sidaa laynoo ka tirtiro marka waxaan leeyahay arrinka mas'uuliyadiisa inaynu wada qaadano inaynu u istaagno anshaxumada inaynu la dagaalano in qofkii arkaa meesha khamriga lagu gadayo uu u soo sheego ilaamaha amniga inuu muxuu ahaay ilaamaha amniguna xil gaar ah iska saaran وهجاج دقيقة ذي وركة باهين تاني في نمايا ولي برتن كجرنا مقالة وجر لبعت حاجة أمنية يا كتاجن تاسوك أنت إن شعبكو أي هبينكي شقيسان ويان دتكو أي جريها مقالان صلاة مغرب كدب وحلقة عمانيا دليل توجأ يولي بعبسي لقى قبل أوركا الشباب برصاب كإسمام الكوجر أيا كهالي لبعت هذا المدة الرسوجرتي الشعب كديجان كوجر هايستا. We know the sighting of insurgents of Al-Shabaab in many parts of this country. We know what's going on. And we also know the sighting in many parts of this entire region. And as a leadership, we are doing everything possible to work with our well-meaning security agencies to deal with this problem. وهجاك وزير كجاشانديكا صوماليا أيام مناسبة عيدة وها ولقاتي عيدة كملترية دولة فدرال كأجوج الديجان كجنالة ومقالة مركان كفوجين والله هسي وأنا لباش علي مو قال كنا سيدنا يوها annagan waxaan nasiib u yeelanay anigii iyo taliyaha ciidanka maaragta lugta inaan la ciidno geesiyaasheena qaranka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan guutada 14 October qaybteeda ku sugan degmada Janaale Janaale waa magaalo maaragta aad u qiimo badan aad u qurux badan oo dadka Soomaaliyeed iyo ummadda shucuubta Soomaaliyeed magaalooyinka ay ku faanaan oo barwaaqada iyo miraha iyo wax walba oo qiimo leh ay ku baxaan jawi macaan leh oo dadka Soomaaliyeed ay jecel yihiin inay u soo dalxiis tagaan nasiib daro waayihii dambe oo khawaarijtu ay timid dhibaato weyn ayay gaarsiisay laakiin nasiib wanaag haddana waa laga xureeyay adinka ka xureeyay oo shacabka Soomaaliyeed gacantooda dib ugu soo celiyay waa idinkaga mahadinaynaa وهجاك على شوط وشقيستياشا فنجركا لو يقانا اي كدلاعي dalka Ruushka inkastoo hore ay u jireen ayaa hadda dunidu ay aad u hadal haysaa gaashaanbuurta NATO ayaa sheegaysa in qatar walba oo ka timaada kooxdaasi calooshood u shaqaystayaasha ay gaashaanbuurtu diyaar u tahay faafayna murtaasi ku saabsan Shamis Xaaji Xasan Haarun ayaa inoo haysa xogayaha guud ee NATO Jens Stoltenberg ayaa sheegay in isbahaysiga militariga reer galbeedku ay diyaar u yihiin inay iska difaacaan khatar kasta oo ka iman karta dhaqdhaqaaqa ciidamada calooshood u shaqaystayaasha ee Wagner ee Ruushka ee ku wajahan Belarus waxaa laga cabsi qabaa u guurista ciidamada gaarka ah inay abuurto xasilooni darro soo wajahda xubnaha NATO ee bariga Yurub waana sababta keentay in hadda uu ka digo xogayaha guud ee gaashaanbuurta NATO madaxa Wagner Yevgeny Prigozhin ayaa lagu soo waramayaa inuu ku tagay Belarus talaadadii toddobaadkii hore kulan aan hore loo sii shaacin waxaana uu kulan la qaatay madaxweynaha dalkaasi Belarus Alexander Lukashenko kulanka madaxa Wagner Yevgeny iyo madaxweynaha dalka Belarus Lukashenko ayaa waxa uu ahaa mid la xiriira wada hadal heshiisyo cusub inkasta oo aan si cad loo faahfaahin qodobadii ay ka wada hadleen labada mas'uul safarka ayaa ahaa mid kadis ah oo aan hore loo sii shaacin walow gadaal laga ogaaday in uu tagay dalka Belarus subaxnimadii talaadada diyaarad khaas ah oo la rumaysan yahay inuu leeyahay Prigozhin ayaa ka duushay magaalada Rostov iyada oo u jihaysatay hawada saldhig koonfurta galbeed ee caasimadda Belarus sida lagu sheegay xogo hoose oo dib laga shaaciyay Masani Shamis
barnaamijkeennii daqiiqadaha wararka baahinteennii fiidnimo intaa haynoo joogo cabdifataax cabdullaah soo saaray maxamed elfis wuu farsameeyey tan iyo kulankeenna kan xiga nabadgelyo faa'iidooyinka adeega ibesa sendi money dirista lacagaha withdraw money qabixidda lacagaha airtime top up ku shubashada xirmooyinka ku hadalka ibesa bay lacag bixinta ama tukaamaysiga loans and savings amaahda iyo kaydka ibesa global xawilaadaha ibesa mastercard virtual mastercard banking service adeegyada bangiga ibesa goor kasta iyo goob kasta